السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعنا wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkan waa janalka xogta dhacdooyinka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan hadduu Bakar hal noqdana waxa ka mid noqonaya beesha xawaadle oo ka soo horjeesatay golaha wasiirada cusub ee Hirshabeelle oo xalay magacaabay madaxweyne Cali Cabdilaahi Xuseen Guudla warbixin ayaan idinkaga soo gudbin doonaa saaxiibayaal سعيد عبد الله الدني oo xaalku ku xun yahay kadib xildhibaanadii ugu badnaa oo mooshin ka gudbiyay qodobada aad daawan doontaan ayay kamid yahay saaxiibayaal qodobkaasi maxaa iska bedelay amniga Muqdisho kadib howlgallo badan oo ciidamada ammaanku ay ka sameynayaan xaafadaha caasimadda wararkii ugu dambeeyay oo xogo ku saabsan amniga magaalada Muqdisho ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal al-shabaabna waxa ay weerar culus ku qaadeen Kenya qodobadaas ayaa daawan doontaan iyo wixii nagu soo kordhay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe noo saar oo sii share garay si uu gaaro saaxiibo badan aynu ku bilownaa iyadoo xalay saqdi dhexe madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdilaahi Xuseen Guudlaawe uu magacaabay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban 80 xubnood oo isugu jira wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal ayaa waxa ka dhashay falcelin aad u xoogan علي Guudlaawe oo 2 sano ay ku qaadatay inuu soo dhiso xukuumadan cusub ayaa durba kala kulmay dhaleecayn xoogan oo uga imaanaysa dhinaca reer Hiiraan qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda Hiiraan ayaa si weyn u dhaliilay liiska golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed oo kamid ah xubnahaasi oo qoraal kooban soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in aysan marnaba ku qanacsanayn wasiirada cusub ee uu soo magacaabay iyo sidoo kale guud ahaan habdhismeedka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan marnaba indhaha laga qabsan karin xaaladda Hirshabeelle iyo sida ay wax ku soconayaan waxa baadi goob u galeynaa helista Hirshabeelle ku dhisan aqoon iyo awood qaybsi midnimo leh Hirshabeellada shakhsiga jeebka ku wato waa laga saarayaa insha Allah dadka aan ku matalo kursiga xildhibaannimada ee reer Hiiraan marnaba kuma qanacsanayn dhisidda Hirshabeelle ayuu yiri xildhibaan Maxamed Cabduqaadir Maxamed sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ay sii wadi doonaan baadi goob uu sheegay in ay ugu jiraan xaq ka maqan reer Hiiraan isaga oo tilmaamay in aysan xal u arkin wasaaradaha loo kala wareejiyay 2 beelood sida ka muuqata golaha wasiirada cusub ee Hirshabeelle waxaan hormuud ka noqon doonaa helista xaqa naga maqan wasaaradaha loo kala wareejiyay 2 beelood ma ahan wax lagu seexin karo dadkayga xaq iyo xuquuqda ka maqan ayaa ka baaxad weyn xisaabta shakhsiga gaarka ah uu wato haddii Guudlaawe uu diiday in uu tala markaasi iyo tusmo ka dhageysto madaxda deegaanka waxaan sugaynaa halka uu ka furo geediga ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyay xildhibaanku dhankiisa xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Buraale oo isna ka soo jeeda Hiiraan ayaa ka hadlay arrintan wuxuuna si adag uga hor yimid xukuumadda uu soo dhisay Cali Guudlaawe Hirshabeelle geel markii loo heeso goronyo ayay u heystaa dadkeegow haba ku mashquulina Hirshabeelle sidii aad u diideen ha ahaato waqti badan hanti iyo dhiig badan ayaa idinka galay in aad heshaan maamul labadaasi gobol ah oo loo dhan yahay nasiib wanaag maanta matalaad dhab ah oo idin horbooda ayaad haysataan ayuu yiri Maxamed Buraale Hirshabeelle ayaa muddo dheer ku jirtay khilaafaad dhanka maamulka ah taas oo ka dhalatay doorashadii madaxweyne Cali Cabdilaahi Xuseen Guudlaawe waxayna hoos u dhigtay horumarkii maamulkaasi dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu wajahayaa xaalad adag kadib markii xildhibaano markaasi aad u fara badan ay mooshin ka gudbiyeen wararka laga helayo magaalada Garowe ee caasimadda gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegayaan in ay mar kale xalay kulan yeesheen guddi ka socda baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdilaahi Dani kaas oo looga hadlayay xiisadda ka taagan dowlad goboleedka Puntland kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhaxaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada maamulkaasi taas oo ka dhalatay magacaabista xubnaha maxkamadda sare oo ay ka biyadiideen golaha wakiilada ee maamulkaasi wararka ayaa waxa ay sheegayaan in haatan ay jirto isku soo dhawaasho labada dhinac taas oo meesha looga saarayo madmadowga soo kala dhex galay madaxtooyada iyo baarlamaanka maamulkaasi sida aan ogaanay madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dani ayaa ballan qaaday in uu mar kale soo magacaabayo
xubnaha maxkamadda sare ee ay goluhu horey u diideen in ay meel mariyaan taasoo xudun u noqotay khilaafka siyaasadeed ee ka jira magaalada Garowe. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ay keensadeen xubnaha qaar ee loo magacaabayo maxkamadda sare taas oo ay cadaadis ku saarayaan madaxweynaha oo ay horey 2 jeer ku adkeysatay in xubnaha markaasi laga diiday. waxaa sidoo kale suuragal ah in madaxweynuhu ciyaaro shax kale isla markaana uu soo celiyo tiro kamid ah xubnihii hore loo diidanaa ee uu magacaabay. si kastaba ha ahaatee xiisadani ayaa si weyn u saameysay wada shaqeynta xukuumadda iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland taas oo hoos u dhacday. dhinaca kalena maxaa amniga Muqdisho iska bedelay kadib amarkii la dul dhigay bajaajleyda iyo sidoo kale howlgallada waalida ah oo maalmihii ugu dambeeyay ay ciidamada booliiska iyo kuwa ammaanka dhammaantoodba ay ka sameynayeen gudaha caasimadda Soomaaliya. ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa howlgallo ka sameeyay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir kaas oo ay horkacayeen saraakiisha booliiska ee qaybta taliska Weliyo Cadde. howlgallada oo guri lagu baarayay ayaa waxaa laga sameeyay xaafadaha degmada Waaberi iyada oo sidoo kale gaadiidka lagu hubinayay inta ay socotay baarista. dad u badan dhalinyaro ayaa lagu soo qabqabtay howlgalladan kuwaas oo hal meel la isugu geeyay waxaana khudbado markaasi u jeediyay saraakiisha horkacaysa howlgalladaasi. taliye ku-xigeenka qaybta Weliyo Cadde Isaaq Maxamed Ciise oo la hadlay warbaahinta kadib markii uu soo dhamaaday howlgalka laga sameeyay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in amniga magaalada Muqdisho wax badan iska bedelay kadib markii mootooyinka bajaajta loo yaqaano magaalada laga mamnuucay wixii ka dambeeya 12 habeenimo. magaalada ciriiri ka jiray awgeed iyo amni darrada ka soo korortay ayaa horta bajaajleyda markaasi lagu joojiyay wax badanna wax iska bedelay aad ayaan markaasi u soo dhaweynaynaa bajaajyada amarka iyo awaamiirta soo baxday fuliyay kuwa aan fulin oo ilaa iyo hadda socda tilaabo ayaan ka qaadaynaa ayuu yiri taliye ku-xigeenka qaybta Weliyo Cadde Isaaq Maxamed. muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada amniga ayaa howlgallo culculus waxa ay ka wadeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana ugu dambeeyay howlgalkii habeen hore ay ka fuliyeen gudaha degmada Karaan ee gobolka Banaadir. ugu dambeyntiina kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo loo adeegsaday hoobiyaal waxa ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada booliiska Kenya ku leeyihiin deegaanka Konton oo u dhow degmada Qorof Xaraar oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi. madaafiicda qaar ayaa waxa ay ku hoobteen gudaha saldhigga ciidamada la weeraray sida ay sheegeen qaar kamid ah dadka deegaanka oo la hadlayay warbaahinta maxalliga ah. sidoo kale war ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo looga hadlay duulaankaasi ayaa waxa ay ku sheegatay in ay khasaare gaarsiisay ciidanka Kenya balse ma cadeynin inta uu leeyahay khasaarahaasi. xaaladda ayaa haatan waxa ay tahay mid degan waxaana la sheegayaa in ciidamada dalka Kenya ee weerarka kadib dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabeen deegaanada u dhow xadka Soomaaliya. saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Kenya oo ka hadlay weerarkan waxa ay shaaciyeen in ay ka hortageen ayaga oo intaasi ku daray in ay ku raajoogaan raggii ka dambeeyay weerarkaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro khasaare geysta ka fulisa gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo xuduud dheer la leh Soomaaliya. weerarkan cusub ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan Soomaaliya iyo diriskeeda waxaana ugu dambeeyay duulaankii ay dhawaan ku qaadeen dalka Itoobiya gaar ahaan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. si kastaba dalalka Kenya iyo Itoobiya ayaa kamid ah wadamada ka qayb qaata dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxa ayna ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray isla markaana aan idinku soo gudbinayna channelka xogta dhacdooyinka waa naga inta. haddii aad markii kuugu horeysana daawanayso fadlan channelkan subscribe inoo saar siina share garay si uu gaaro saaxiibo badan.